Soomaalida maanta iyo in aan wada raadinaa guushaas oo ah midda adduunyada ayaan ku badanahay. Haddana wax laga keenay ma jirto. Haddana Soomaalidu waxay dhahdaa miraha maanta abuuratid ama geedka maanta abuuratid ayaa biri guranaysaa. Waa maxay micnaheeda? Maxay tahay micnahaas? Iyo waxyaabo kale oo fara badan ka mid ah oo guul lagu gaaro ayaan rabaa inaad kula socdo. Kusoo dhawaada mar kale channelkeeni ahaa toosintii garaadkii barashada xikmadda waa walaashiin Ismahan Khaliif. Assalaamu calaykum, soo dhawaada. Waxaan rabaa maanta inaan idinla wadaago geedkaad abuuratid ayaad biri harsataa. Mirahaad maanta abuuratid ayaa biri guranaysaa. Waxaa maanta samaysatid ayaa biri helaysaa. Waxaas wuxuu ahaa tii adduunyada waqti badan ama cibaadada maanta cibaadaysatid ayaa biri aakhiro ku anfacayso. Marka waxaan rabaa inaan idinla wadaago arrin inaga dahsoon dadkeena. Waxaad haysataa wadnahaas ayuu Ilaahay kusoo siiyey. Intaasoo aayado qur'aan ah iyo intaasoo axaadiis ayaa wadnaha ka sugnaaday. Marka laga hadlayo qalbiga waa wadnaha, waa qalbiga. Waxaa kaloo jiro muxuu ahaa maskaxdeena. Marka maskaxdaadana waa qalab iyadana Ilaahay kusoo siiyey inaad isticmaashid. Laakiin ma aha in ay farahaaga ka baxdaa oo shayaadiinta maskaxda degaan ay ku isticmaalaan wadnahaagana dhaawacmo, uu daboolmo, uu wasaq noqdo oo aad noqoto qof wada damqadaa. Ma fahantay in la wada damqadaa, la naxaa, la xanaaqaa, la qeyliyaa, la ooyaa, la dagaalamaa. Nolosha ma aha taas. Taas waa nolol adduunkana ciqaab, aakhirana ciqaabay noqonaysaa. Maxaa yeelay waa arrimo balbalaaran waa arrinkan. Marka waxaan rabaa xir inaad idinkaga socdo qaybta oo maskaxda. Maskaxdaada iyo wadnahaaga walaalayaal qaaliyaal qalbiroonyaal i dhageysta. Maskaxda iyo wadnaha waa inaad isku xirtid. Maskaxdana waa in aad ku abuurtaa miro nadiif ah oo daacad ah. Maskaxdeena ayaana baabi'iso. Maskaxdeena anaga maanta haddaa ka dhigtid waxaa ku bartay waa ku shaqaysanaa, kana ku qabsanaa, si aqli wax ku keensanaa, si kan waxaa ka fiican si nadiif ah Ilaahay dartiisa miro macaan oo aad iyo aad u tayo badan haddaa maskaxdaada ku abuurtid oo ka soo qaado kaleeto aad dhahdid aniga waxaa sameynaya oo dhan Ilaahay dartiisa ayay iga tahay, ujeedo lahayn, daacad ka ah. Waa samaysata, waa abuurata, biri ayaa helaysaa. Kasoo horjeedkeeda in aad wax walbo adduunyo ku raadinaysid, magac ku raadinaysid, wax ku raadinaysid iyadana ku abuurtay. Biri kamaale labadaas miro laba qof hadday kala abuurtaan meeshay kala gaarayaan waa la garanaa. Qofki Ilaahay dartiisa adduunkana ku guuleysanaya, aakhirana ku guuleysanaya, qofka kalena wuu fashilmanaya. Sidaasoo kale waaye shar iyo kheyr kasta aad samaysaa iyadana waa miro aad abuuranaysid. Marka mar kasta wax xun oo dhaqan ah aad samaynaysid, ficil ahaan u samaynaysid, maskaxdaada ayay ku abuurmanaysaa marka hore. Kadibna miro ayay dhalaysaa, mirihiina miro kalu dhalaa. Marka ma idin dhihi karo anaga oo dhan inaan hal mar wada nadiif noqonayna, laakiin shaqo fiican ayaa nalooga baahan yahay. Ogaada mar walbo ani idinla hadlaayo, idinka kaliya idinlama hadlaayo, waa isla hadlayna, waa idinla hadlaayo, waa isla sheekaysanayna, wixii wanaagsan ayaan idinla wadaagaya. Marka waxaa la rabaa in aad si nadiif ah waxyaabaha xunxunka horta beertaada oo maskaxdaada ah waxyaabaha xunxunka ku jiro marka hore inaad ka siibtid. Meel oo wax xun ka baxay inaad shay kala keentid ma ku kor abuuri kartaa? May sun meel ka baxaysay ama waxyaabo xunxun ah oo la cunin oo dadka cunin hadduu ka baxay meeshaas waa la caragadiyaa. Sidaasoo kale maskaxdaada caragadis inaad u samaysiin waay. Maskaxdaada waxaa ku samaynaysaa, waa qabanaysaa, wax kastoo xun waa ka saaraysaa, waa la diriraysaa. waxaa ka mid ah inaad dadka xukunno, waxaa ka mid ah dadka inaa cayno, waxaa ka mid ah dadka inaa xasidno, dadka in la dhibaateeyo, in dadka maanta dhan laga daba shaqeeyo. Waay sabab aad dadka uga daba shaqeynaynaa, sabab aad dadka u dhibaateynaynaa, sabab aad dadka u xamanaynaa, sabab aad qofku u xasdaysaa, maxaa ka dheefaysaa, maxaa dhibaato kaaga soo arooraayo. Maantana marka waxay noqotay wax xun inaan wada abuuranay, kadibna wax xun oo joogto ah ee nolosheenii noqoto. haddii adig ku dhaaftana ilmahaaga wada helayaan. Marka arrinkan waa arrin ballaaran, wax oo hal maalin ama hal cashar loo hadli karo mee. Marka miraha macaan aan maskaxdeena ku abuurano, markaan abuureynane
kii hore ee wasaqda ahaa ku jiray ayaa ka saaraysaa. Kasoo qaado kale xasad ayaa kugu badan. Xasadka markaa aragtid sabab waay maxaa u xastaa dad, maxaa u xastaa qofkaas, ma xasdaa waa tuuraysaa. aniga dadka ma xasdiyaan leedahay, markastuu xasadku soo weeraraa waa diidaysaa. mirihii xasadka ahaa wuu ka baxaa booskaas, maseerkii saasoo kale, xiqdigii saasoo kale. markasta aan naxdaa ama wax kasta oo ku danqiyaani waa caafimaad daro korkaaga ah. inaa xanuunsatino ma aha, waa in aan faraxsanaanaa, waa inuu waxbana xanuujinin, waa in hadduu wax kasta geeriya ugu daran dhacdaa xataa ogolaana raali ku noqonaa. maxaa yeele wax ma ka qaban kartid, waxbana ma tihid, waxbana ma nihin. wax aan qaban karno iyo waxaan bedeli karnaa male. adduunyada alla maamulo siduu alla ka yeela ayay noqonaysaa. waxa ugu wanaagsan uu binu aadan sameeyaana waa inuu si daacada ilaahay u caabudaa, dadkiisa nabadgeliyaa, qof akhlaaq leh nafsadiisa xakameyn kara noqdaa, uu daacad noqdaa, uu miro macaana maskaxdiisa ku abuuraa. si mirihiisa macaan afkiisa ayuu kasoo baxaa. waxa macaan afku kasoo baxaa. sida afka waxa macaan looga cuno ayaa markaa wax macaan afka maskaxdaada ku abuurtid, afkaaga waxaa kasoo baxaya wax macaan. waxay la garateen oo u maleynaa. marka wax macaan aan maskaxda ku abuurno oo daacade oo nadiife oon iska dhaafee shimbiraha dhibaateyneynin, iska dhaafee aan dhulka lagu dhibaateynin, aan wadankaaga mahe wadan kale xataa dhib u gaarsiineynin. ma fahanteen? wax kasta markaad sameynaysid waa inaad miisaantaa aad dhahdo waxaan anigii ma dhibaateenay, qof kale ma dhibaateenay, kan ma yeelay, kan ma yeelay. haddaa aqirse u socoto wadan kaluu dhibaateynay camal oo noqoto waa ka baxaysaa. maxaa yeelay binu-aadanimadu waa sidaas. binu-aadanimadu waa sidaas. binu-aadanimo marka la waayana islaamnimo ma jirto. maxaa yeelay dadka ilaahay ayaa wada leh. hadalkaa ka hadlaaya iyo meeshaan ka hadlaaya waxaan jeclaan lahaa inay ila fahantaan. qofkii aqli furan iyo wadno isku xiran ku dadaalaa wuu gaarayaa. marka aad isku xirnaatid ayaad qof kale ku xirmi kartaa. adigoo isku xirneen oo kala socda oo kala xiran waxba iskuma xiri kartid, waxnana ma kala xiri kartid. waxunbaad khasaareynaysaa, waxunbaad dhibaateynaysaa. halaas ayaa idinkugu ekeeyey. marka wax macaan saa ugu abuurno maskaxdeena oo hadal macaan afkeena uga soo baxaa waa in aan wax macaan abuuranaa oona wixii hore oo xumaa ka saarnaa. detoxification ku sameysay maskaxdaada, toxinka dhan maskaxda ka saartid. waxyaabaha xunxunka fikirka xunxunka waxa micno la-aanta, xasadka, xiqdiga, dulmiga, dhibaateynta, kala geynta, mardabada, beenbeenta, waxaa adigoo is inkiraysid oo qofka kalena wixiisa sheegaysid. adiga wax la qiyaasi karo ma ismiisaan, miisaankiisa saar. maanta dhan waxaa la diranaa miisaan, waa cayilna iyo waa catoona ka hadalna. laakiin miisaanka camaladaada iyo dhaqamadaada oo aamiisaantid oo is aragtid, adiga is aragtid ayaa guusha nolosha ah. guusha nolosha waa taas. markaas ayaad guuleysanaysaa, adaa wax iska qabanaysid, dadka kalena wixii awood ayaa u qaban kartaa. hadda qof horuu socdaa noqonaysaa oo daacada oo ilaahay agtiisana wax fiican ku yaali doono. adduunkana nabad fara badan ayaad helaysaa. waa walaashiin Ismahaan oo halaas idinkugu ekeysay. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.